السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وحاسيتو صح نوجد داونيسان قلعة تيفي oo had iyo jeer aad ka daawan doontaan wararka xasaasiga ah iyo warbixino xiiso leh fadlan hadaad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar noo sii share garay gambalka furo si aad u hesho warar xaqiiqooyin ku saleysan qodobada xasaasiga ee warbixinteedan idinkuga hayo waxa kamid noqonaya dagaalada laga cabsi qabo inay ka dhacaan magaalada Boorama iyo gobolka Seleele cabsi xoogan ayaa laga qabaa in halkaasi dagaal weyn uu ka qarxo maadaama waqti xaadirkani laga cabsi qabo in beesha Ciise iyo beesha Gudub Hursi ay isku farasaaraan deegaanka gobolka Seleele oo waqti xaadirkani ay isku aruursanayaan ciidanka beesha Ciise ayaa isku aruursanaya meel u dhow Yacde oo sidoo kale marin xasaasi ah sidoo kalena waxay si toos ah bartilmaameedkooda ugu aadan yahay inay soo weeraraan magaalada Boorama ayagoo sheegay inaysan gorgorta ka galaynin dadka diidan in xeerka beesha Ciise lagu qabto magaalada Sayla warbixin dhameystiran ayaan idinkaga hayaa fadlan subscribe noo saar noo sii share garay si aan u helno saaxiibo wanaagsan oo qiimo badan oo adiga oo kaleeta dagaalka laga cabsida qabo ee labadan beelood ayaa cirka isku sii shareeraya kadib markii beesha Gudub Hursi ay si toos ah u sheegeen in beesha Ciise ay taageero buuxa ka helayaan dawladaha Itoobiya iyo Djibouti ugaaska beesha Ciise ayaa si toos ah ugu dhawaaqay dagaal asagoo sidoo kale sheegay in aysan gorgortan ka galaynin sidoo kale maamulka Somaliland oo xeerkaasi joojiyay kadib mudaharaadyo rabshado ka dhashay magaalada Boorama ayaa si toos ah u faragelinaya ciidamo fara badan oo beesha Ciise ay ku aruurisay meel u dhow Yacde sidoo kale waxa laga cabsi qabaa in ciidamada militariga ee Somaliland iyo kuwa beesha Ciise ay isfara saaraan maadaama Somaliland ay si cad uga soo horjeedo in gudaheeda lagu dhax aasaaso jabhad u dagaalanta beesha Ciise sidoo kalena beesha Gudub Hursi ayaa si toos ah ayagana jabhadooda waxay ugu qalabeenayaan hub iyo saanad military si ay iskaga difaacaan ciidamada beesha Ciise warbixin dhameystiran ayaan idinka siinay sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulamo xasaasi ah ka wada magaalada Muqdisho sidoo kalena beesha murursada ayaa hub iyo saanad military ku wareejisay Farmaajo iyadoo ilaalada Farmaajo la sii adkeynayo amnigiisa maadaama waqti xaadirkani saraakiil ka tirsan beesha Abgaal ay buux dhaafiyeen guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulamadaani waqti xaadirku ka wado magaalada Muqdisho u doorbidaya sidii uu mar kale jagada madaxweynenimo uga hanan lahaa ciidanka beesha murursada oo banaanka magaalada Muqdisho uu ku aruuriyay xildhibaan Jacfar ayaa la filayaa in ay gudaha Muqdisho soo galaan kadib beesha murursada ballanqaad la yaab leh u qaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqti xaadirkani xaaladaha sii kordhaya isku dayga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku doonayo xilka madaxtinimada iyo kaambeenka waqti xaadirkani uu ka wado magaalada Muqdisho ayaa imaanaya xilli xasaasi ah oo uu la shirayo beelaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ay ugu horeeyaan beelaha murursada Abgaal ayaa saraakiishii ugu badnaa buux dhaafiyay guriga uu ka degan yahay Muqdisho Farmaajo waqti xaadirkani waxa laga cabsi qabaa in saraakiishaasi ay badbaado labaatu ay uga dhawaaqaan magaalada Muqdisho kadib xaaladaha xasaasi oo ka soo kordhaya guriga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrimo badan oo ku geedaaman ayaan idin la wadaagayaa fadlan subscribe noo saar noo sii share garay gambaleelka furo si aan u helno saaxiibo wanaagsan oo qiimo badan oo adiga oo kaleeta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dadaal maal iyo muruq intaba ku bixinaya sidii uu hanan lahaa dhammaan beelaha majority-ga magaalada Muqdisho beesha Abgaal iyo beesha murursada ayaa safka hore waqti xaadirkani ku jira xilli uu waqti xaadirkani isku dabiridayo inuu ka guul gaaro isku dayga uu waqti xaadirkani uu ku raadinayo inuu ku hanto dhammaan beelaha degan magaalada Muqdisho daawadayaal waxaad sidoo kale warbixinteena ku daawan doontaan mucaaradka ku wajahan dalka Kenya casuumada dalka Kenya ay soo dirtay sidoo kale mucaaradka oo xalay shir ku yeeshay ayaa go'aan ka gaaray inay u ambaxaan dalka Kenya mucaaradka oo xalay shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa go'aan ka gaaray inay gabi ahaantoodaba u socdaalaan dalka Kenya xilli saacadaha nagu soo wajahan ay si toos ah ugu duuli doonaan magaalada Nairobi mucaaradka ayaa ku wajahan magaalada Nairobi ee dalka Kenya xilli waqti xaadirkani dawladda Kenya casuumad ay u fudisay maadaama isqabqabsiga siyaasadeed ee Villa Soomaaliya kala dhaxeeya xilli isqabqabsiga siyaasadeed ee u dhaxeeya Xasan Sheekh Maxamuud oo xal u heli waayay sidoo kale waxa weerar toos ah ku qaaday madasha mucaaradka wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi asagoo si toos ah u weeraray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuuna si toos ah u sheegay in odayga koofida weyn ee mucaaradka horboodaya inuusan meel gaarsiin karin dalkan hadii gacanta loo geliyo sida uu hadalka u dhigay Axmed Macalin Fiqi wuxuu si toos ah sidoo kale carabka ugu dhiftay Axmed Macalin Fiqi asagoo sidoo kale si toos ah u tilmaamaya madasha samata bixinta iyo tan mustaqbalka oo ku geedaaman
in ay gebi ahaanba ku tilmaameen dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud mid fashilantay. sidoo kale xogo iyo macluumaad dheeraad ah ayaan idinkaga soo gudbinayaa guddiga doorashooyinka oo loo gudbiyey cabasho ka dhan ah xisbiga GSB kadib ayadoo si toos ah loo tilmaamay in xisbiga GSB weli xilalka muhiimka ah ee gobolka Banaadir uu ku fadhiyo ayadoo xeerarka doorashooyinka gobolka Banaadir ay si toos ah u dhigayaan in uu tartamaha jagada uu si toos ah iskaga casilo ka hor 6 bilood intuusan tartamin. guddiga doorashooyinka ayaa sheegay ka hor 6 bilood in doorashada golaha deegaanka gobolka Banaadir la qaban doono ayadoo sidoo kale weli ay xilalka ku fadhiyaan mas'uuliyiinta xisbiga GSB ka wada tirsan ee waqti xaadirkani xilalka buuxa ka haya gobolka Banaadir ayadoo inta badan degmooyinka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay si toos ah ugu tirsan yihiin xisbiga GSB. daawade fadlan subscribe noo saar noo sii share gareey si aan u helno saaxiib wanaagsan oo qiimo badan oo adiga oo kaleeta. waxaan idin soo gudbinayaa xogtii ugu dambeysay ee Soomaaliya. haddaad naga ilowday inaad subscribe noo saar noo sii share gareey waad ku mahadsantahay daawashadaada.